waatee shanta wadan ee ugu nadaafada badan dunida sanadkan ku guda jirno ee 2020 waxaan kugu soo gudbin doonaa muuqaalkana shanta wadan sida ay u kala reed sareeyaan. kaalinta koowaad waxa soo tiigsatay wadanka Switzerland. Switzerland waxa ay haysataa taajka sanadka 2020 waxa ayna tahay wadanka ugu nadaafada badan adduunka iyada oo leh reedka ugu fiican ee dhanka nadaafada oo ah 87.42. tani waxa ay sharaxaysaa sababta ay uga fiicnaatay wadamada kale xagga nadaafada. wadankan wuxuu dhacaa galbeedka Yurub, Jarmalna waxa ka xigta waqooyiga, Talyaanigana dhanka koonfur, Faransiiska galbeed ayuu ka xiga iyo Austria oo ka xigta dhanka bari. dadka ku nool dalkan waxa lagu qiyaasaa 8 milyan oo qof. waxay ku hadlaan mid ka mid ah afarta luqadood ee dalka sida Jarmal, Faransiis, Talyaani iyo Roomaanka. wadanka France waxay soo tigsatay kaalinta labaad ee wadamada ugu nadaafada badan adduunka sanadka 2020. waxa ay haysataa rate ama dhibco gaaraya 83.95. waana wadanka saddexaad ee ugu weyn qaaradda Yurub, wuxuuna dhacaa galbeedka Yurub. dalkan hodanka ah waxa ku nool dad gaaraya 62 milyan oo qof. Faransiisku wuxuu ka mid yahay wadamada adduunka ugu habboon xagga deegaanka iyo dabiicadaha. waxay heshay dhibco sare dhanka hawada wanaagsan, fayadhowrka biyaha iyo kalluumaysiga. wadanka saddexaad ee wadamada ugu nadaafada badan ee adduunka waxa soo tiigsatay wadanka Denmark. reedka ay haysato u gaaraya 81.60 xagga nadaafada wadanka. sanadkan aynu ku jirnay 2020 Denmark tirada dadka ku nool dalka waxa lagu qiyaasaa 5,754,356. waxay ku fadhisaa qaybta ugu badan ee dhanka koonfur ee wadamada la isku dhaho Scandinavianka oo ay ku jiraan Finland, Norway iyo Sweden. Denmark kaliya ma aha mid ka mid ah wadamada adduunka ugu nadaafada badan. wadanka sidoo kale wuxuu ku fadhiyaa nambarka labaad ee liiska wadamada ugu farxadda badan ee adduunka sida lagu sheegay sahan ay sameysay Globe World Poll. wadanka afraad ee ah wadamada ugu nadaafada badan adduunka waxa haysta wadanka Malta, waxayna rate ahaan u haystaan 80.90. waa wax xiiso leh in la ogaado in Malta aysan lahayn keymo ama wabiyaal. wadanka ugu dambeeya ee shanaad waa wadanka Sweden ee kaalmaha hore kaga jira wadamada ugu nadaafada badan ee dunida sanadda 2020. Sweden waxay kaalinta ku soo fariisatay iyadoo haysata rate gaaraya 80.51. dhammaan wadamada Scandinavianka waxay ka siman yihiin 3 sifo oo guud: nadaafada, nabadda iyo sida wanaagsan loo horumariyay. Sweden kama duwana iyada oo si joogto ah ugu jirta liiska dalka adduunka ugu nadaafada badan sanadihii la soo dhaafay. dalkan dhaca waqooyiga Yurub waxa ku nool dad tiradiisu ay dhan tahay 9.1 milyan oo qof. dowladda Sweden waxa ay muhiimadda siisa inay ilaaliso jawi nadiif ah. wadanku waxa uu leeyahay hawo iyo biyo nadiif ah, kumanaan hektar oo kayn ah oo la ilaaliyo iyo harooyin haybad leh. intaa waxay ahaayeen shanta wadan ee ugu nadaafada badan adduunka taa oo tirikoobka lagu sameeyay sanadka aynu ku guda jirno ee ah 2020. walow ay jiraan wadamo kale oo qayb ka ahaa ee kaalimaha kale ka soo galay, balse daawade waan filayaa inaad is leedahay wadan ayaad ka tagtay. hase ahaatee xisaabta waxaad ku darsataa 27aad kaalinta waxa soo fariistay wadanka Mareykanka. 27 ayuu ka soo fariistay, balse adigu maxaad is leedahay waxa ay ku noqotay inay soo fariisto booskaas wadankaagase halkee buu kaga imaan karaa wadamada ugu nadaafada badan dunida ee tirkoobka la sameeyay 2020.